siirada suubanaha sallallahu alayhi wa sallam. qaybta shanaad, guurkii Khadiija. Khadiija waxa ay ahayd qof maalqabeyn ah oo qurux badan oo ka sheegneyd haweenka Quraysheed, waxayna da'deedu ahayd markaa 40 sano. ka hor waxa ay soo guursatay nin ay 2 caruur ah u dhashay. Khadiija maalkeedii ayay hadba qofba u dhiibi jirtay si uu ugu tijaareeyo, waxayna wax ka siin jirtay faa'iidada. waxay maqashay Maxamed bin Cabdullah sallallahu alayhi wa sallam runtiisii, dabeecadiisii wanaagsanayd iyo amaanadiisii oo Makka oo dhan caan ka ahayd, oo loogu magac daray loona bixiyay Maxamedul Amiin. markaas ayay u yeertay Nabiga sallallahu alayhi wa sallam una soo bandhigtay inuu xoolaheeda maanta u tijaaro geeyo. Rasuulka sallallahu alayhi wa sallam wuu ka yeelay oo tijaaradii ayuu qaaday, waxayna ku dartay wiil u joogay oo la yiraahdo Maysara. Nabiga sallallahu alayhi wa sallam iyo Maysara waxay xoolihii u qaadeen Shaam, halkaas oo Nabiga sallallahu alayhi wa sallam u soo iibiyay xoolihii uu kaxeeyay, isla markaasna wuxuu soo gaday wixii Makka looga baahnaa. faa'iido aad u badan ayuu Nabiga sallallahu alayhi wa sallam Khadiija u soo hooyay, taasoo u keentay kalsooni dheeraad ah iyo inay aragtay amaanadii iyo akhlaaqdii Rasuulka sallallahu alayhi wa sallam. Maysara wuxuu u sheegay Khadiija waxyaabo mucjiso ah oo Nabiga sallallahu alayhi wa sallam ku arkay. sidaa darteed Khadiija markay aragtay Nabiga sallallahu alayhi wa sallam arrimahaas iyo waxyaabaha la midka ahaa, waxay Rasuulka sallallahu alayhi wa sallam u soo bandhigtay inay isguursadaan. Rasuulka sallallahu alayhi wa sallam wuxuu la soo tashaday adeeradiis, wayna ka aqbaleen, wayna u dooneen oo labadii ehel ayaa isku yimid. halkaas ayaana Rasuulka sallallahu alayhi wa sallam loogu meheriyay Khadiijo. Khadiija oo Nabiga sallallahu alayhi wa sallam qabay ilaa uu 50 sano dhaafay, waxay Nabiga sallallahu alayhi wa sallam u dhashay caruurtiisii oo dhan marka laga reebo Ibraahim oo ay u dhashay Maariyatul Qibtiyya. waxayna Nabiga caruurtiisii ahaayeen 3 wiil oo la kala oran jiray Ibraahim, Qaasim iyo Cabdullaahi, oo la oran jiray Tayyib iyo Daahir, iyo 4 gabdhood oo la kala oran jiray Zaynab, Ruqiya, Kaltuuma iyo Faaduma. 3 wiil way saqiireen, ha yeeshee gabdhihii way hana qaadeen oo islaamka ay kala kulmeen, wayna wada islaameen. siirada suubanaha waa barnaamij maalinle ah oo aan aalaaba ku soo bandhigi doono siirada Nabiga sallallahu alayhi wa sallam. kala soco maalmaha Ramadaanka 4 galabnimo Rashka Production YouTube iyo anigoo ah Ahmed Jubba.